السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا موقع عصب يا بيانية channel. maanta muuqaalkeen waxaan kaga hadli rabnaa doctorkii ugu weynaa ee taariikhda soo mara Abul-qasim Al-zahraawi wuxuu ku dhashay magaalada Azhara ee Andalus oo maanta loo yaqaano Spain. taariikhda saxda ee dhalashadiisa khilaaf ayaa ka taagan, balse taariikhyahanadu waxay u badan yihiin sanadkii markuu ahaa 936 hijri. Al-zahraawi wuxuu caan ku ahaa magac Laatiini ah oo ah Al-qasim. wuxuu ahaa doctorka qalinkii ugu weynaa ee taariikhda adduunka. doorkiisii fiicnaa ee daawada wuxuu soo saaray buug ugu magac daray at-tacriif liman cajaza at-tacliif. buuggan oo qaatay wax ka badan 50 sano si uu u dhammaystirmo, waxaa ku jira noocyo badan oo cudurro ah iyo daawadooda. buuggan wuxuu sidoo kale sharaxayaa wax ka badan 200 oo qaab oo qalin ah, waana sababta ka dhigaysa in al-zahraawi uu noqdo aabaha qalinka. buuggu wuxuu ka kooban yahay 1500 oo baal. waxaa lagu turjumay luuqadda Laatiiniga qarnigii 12aad, waxaana turjumay Gerard Kirimoni. qoraalka ugu da'da weyn England waxaa lagu qiyaasaa 1250kii, sida ku xusan joornaalka caafimaadka ee England. waxay u eg tahay muuqaalka buugga al-zahraawi. aalado badan oo hadda la adeegsado oo qalin ah ayaa si sax ah ula mid ah kuwii uu qaabeeyey al-zahraawi. wuxuu ahaa doctorkii ugu horreeyay ee tilmaama nooca dabiiciga ee cudurka hemophilia si uu ugu sharxo uurka caloosha nooca hoosaad oo ah uurjiifka oo waagaas ahaa cudurro dilaa ah. wuxuu kaloo soo saaray aaladda qalinka, qeybaha qalinka hindhaha. al-zahraawi wuxuu dhintay sanadkii markuu ahaa 1013 magaalada Cordoba ee Spain. haddii ay tahay markaagii kugu horreysay aad soo booqato channelka kan ee Bayaaniye, fadlan subscribe saar. haddii aad ka heshay video kana like nagu dhiirigeli si aan u soo badino fiidiyowyada noocan. wixii oraah iyo weydiimo ahna qaybta hoose commentiga noogu reeb. mahadsanidin.